Waxaa maanta la daahfuray horyaalka afartanaad ee ciyaaraha fudud ee dalkeena Soomaaliya ay soo qabanqaabiyeen xiriirka ciyaaraha fudud ee dalkeena Soomaaliya. Horyaalka ayaa waxaa ka qayb galaya 9 kooxood oo u diiwaan gashan xiriirka ciyaaraha fudud ee dalkeena Soomaaliya qaybihiisa kala duwan ee tartankani. Tartanka furitaankiisa ayaa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiinta xiriirka ciyaaraha fudud dalka Soomaaliya iyo sidoo kale mas'uuliyiinta xiriirka ciyaaraha kala duwan ee dalkeena Soomaaliya. Tartankan oo aad u xiiso badan ayaa markaasi ka qayb galaya 9kaasi naadi, waxa uuna socon doonaa 5 cisho sida ay markaasi sheegeen xiriirka ciyaaraha fudud ee dalkeena Soomaaliya. Tartankan oo horey loo qaban jiray ayaa ku xifaaltami jiray dhammaan kooxaha u diiwaan gashan xiriirka ciyaaraha fudud ee dalkeena Soomaaliya. Tartankan ayaa la ordi doonaa qaybo kala duwan oo markaasi tartanka waxaana maanta oo la daahfuray lagu bilaabay 100 mitir oo markaasi yeeshay 2 waji oo ay markaasi ku tartameen kooxaha u diiwaan gashan xiriirka ciyaaraha fudud ee dalkeena Soomaaliya. Waxaana sidoo kale la soo dhaweeyay xiriirka ciyaaraha fudud ee lagu hambaliyay tartankan ay markaasi daahfureen, iyagoona mas'uuliyiinta ka soo qayb galay ay ku amaaneen madaxda xiriirka ciyaaraha fudud, sidoo kalena ay ammaan balaaran u jeediyeen ciyaartoyda ka qayb galay tartanka, iyagoona sheegeen in natiijo wanaagsan ay ka soo bixi doonaan, sidoo kalena kooxaha horumar ay u rajeyn doonaan. Mas'uuliyiinta ka soo qayb galay ayaa qayb ka ahaa. Sidoo kale tartanka waxaa daahfuray agaasimaha wasaaradda ciyaaraha dhalinyarada Siciid, oo sidoo kalena taariikh weyn markaasi ka bixiyay qaybaha kala duwan ee markaasi xidigihii soo maray ciyaaraha fudud ee dalkeena Soomaaliya oo markaasi soo carbaabay. Waxa uuna ugu mahadceliyay dhammaan mas'uuliyiinta xiriirka ciyaaraha fudud kooxaha ka qayb galaya, wuxuuna sheegay in tartankan si nabad leh uu markaasi ku soo idlaado, iyadoona maalinta berita ay markaasi jiri doona orod kale oo ay qayb markaasi ka yihiin, maadaama maanta la orday 100 mitir. Beri ayaa waxaa la ordi doonaa 200 iyo sidoo kale 400 iyo 800 oo qaybahooda kala duwan ilaa iyo markaasi 10 mitir ay la ordi doono. Waxaana inta badan markaasi kooxaha ay diyaar garow xoogan u galeen muddooyinkii uu markaa tartankan bilaaban ka hor ay isku soo diyaariyeen, iyagoo doonayay sanadkan in bandhig wanaagsan ay ka soo bandhigaan ciyaaraha kala duwan ee dalkeena Soomaaliya.